iyada magaalada Laascaanood ay gacanta ku hayso maamulka Somaliland oo sheegay in uu Soomaaliya inteeda kale ka madax bannaan yahay sheegayna in uu dawlad gaar yahay ayaa hadaba waxa haweenka ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxa ay firin u direen dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxda dawladda Soomaaliya iyagoo sheegay in ay taageersan yihiin dawladooda waxay dhinaca kale firin u direen maamulada dalka ka jira iyagoo dhalilay maamuladaasi iyo qaabka wax u wadaan waxay sheegeen in ay maamuladu ay meel fiican ay wax ku wadeen balse ay yihiin kuwa qarnimada Soomaaliyeed la dagaalamaya waa mid labaad waxaan gaar ahaan u salaamayaa dawladda Soomaaliya ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyda caafimaadka qabtay Ilaahay uu noo soo diray qorax duhur joogta weeye qorax duhur joogtana sacab laguma qarin karo ma sha Allah ma ilaahay boqoradeedna shaqaba kuma leh dawladda Soomaaliya ayaa u xil saaran dalka Soomaaliya oo ma taqaanaa in meel kasta in iyadu ka soo saarto oo meel kasta madax ka ahaato loogu talagalay waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo madaxweyne guulayso inanka yar ee Soomaaliya u soo baxay u dhashay guulayso ilaahay waxaanu kaaga barnay inaad guulaysato ilaahay waxaanu kaaga barnay inaad cadow ku qaban ilaahay waxaanu ka barnay kuwa ku doonaya inay cagta hoosteeda galaan ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo Dajiye dani ninka yiraahdeen anigu damiye u bixiyay damiye waxaan leeyahay damiye waxaan leeyahay dawlad baa lagu doortay waadna damisay dalkaagii mee damiyow badda waadiga doonayee mee damiyow badda waadiga cunayee mee damiyow carab waadiga u tagay meeyay damiyow meeday Puntland damiyow hagaad ku ogtahay Puntland damiyow dawladii dhexe hunguri ku geeyay damiyow alla ka reeb dalka waxaan salaamayaa oo aan gaar ahaan u salaamayaa madaxweyne nabad iyo nolol waxaan salaamayaa Xasan Cali Khayre waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkiina ka haya iska dhaaf inta aan loo gudbin jeelasha kuwii laga soo guray inta aan loo gudbin dalka maxay tahay deyrka lagu xidhay inta aan loo gudbin waxaanu idinka hambalyeeynaa abaartii banayd ee aad la kulanteen ee uu ku sitay lacagta ninka la yiraahdo Xasan Sheikh oo boosada lacagta ku sitay ee dhex mushaaxayay marba Mareykan iyo marba meel u duulayay oo lacagta ku sitay idinkoo faramaran oo aan shilin haysan meeshii aad ka qabateen abaartii saad hoggaanka ugu qabateen oo meel uga xidhan ummadda Soomaaliyeed ayaan idinku salaamayaa gurigiisu nabadgelyo qabeen ninka gurigiisa kugu soo hogaamiyayow isagaad ka aragtay adigu maad sameyn isagaad ka aragtay Soomaaligaad ka aragtay Talawadaag Media kala soco wararkii u dambeeyay dibad iyo caalamka ku xidhnow Talawadaag Media goor kasta iyo goor walba ha moogaan Talawadaag Media isdoortay la tagay maxay haytay caana shubkiisa aqalka dhexdiisa ahaa ilaa la tagay cid ma ogeyn haddaan uu ogaanay iftiin baa noo baxay waa noo bariyay Axmed Madoobe war halka ogaadeen markii hore ba isaga gacanta u galiyay maxay haytay meesha la yiraahdo kinilka shanaad isaga gacanta u galiyay Itoobiya iyo Xabashida maantana uriikaniyaatu ku wadaa inuu dalka gacanta u galiyo wararta reer yahow Soomaali miyaadan ahayn Muuna Axmed Cabdi Munumandeeq dalka TV Laascaanood